Bismillah kusoo dhawaada qormadeena qumuu ahaa libaaxii saxaraha ee Cumar al-Mukhtar. Gumeystihii Talyaaniga 16 Sebtembar 1931 wuxuu daldalay Sheekh Cumar al-Mukhtar oo ay markaasi da'diisu ahayd 73 jir kadib markii la saaray maxkamad kumeel gaar ah oo ay gumeystuhu gacanta ku hayeen. Encyclopedia Ingiriiska ayaa sheegay markii uu Talyaaniga qabsaday dalka Liibiya 1911 waxay dalka Liibiya ay kala kulmeen iska caabin muddo dheer socotay taasi oo sababtay in heeryadii gumeystaha uu iska rido dalka Liibiya. Andrew North wuxuu sidoo kale ku qoray BBC-da in markii Talyaanigu soo galay Tripoli 1911 isagoo rajeynaya in Liibiya ay u arki doonto inay yihiin kuwo helay xorriyad sidii xukunkii Cusmaaniyiinta, mana filaynin iska caabin lagala hor imaanayo. Iska caabintaasi oo socotay muddo 20 sano ah kana socotay agagaarka Benghazi. Iska caabintaasi oo uu hogaaminayay Cumar al-Mukhtar. Kaligii taliyihii faashistaha Talyaaniga hogaaminayay ee Benito Mussolini wuxuu ku qasbanaaday inuu caburiyo gacdoonkii gumeysiga diidka ahaa, wuxuuna bilaabay inuu ciqaab wadareed u geysto 100,000 oo reer Liibiya ahna ka musaafuriyay deegaanadii ay kacdoomada ka socdeen, isla markaana ku guray xabsi wadareedyo ay kumanaan qof ku dhinteen. Haddaba sanadii 1931 Cumar al-Mukhtar ayaa la qabtay laguna hor daldalay kumanaan taageerayaashiisa hortooda. Waa kuma ninkan, ujeedkiisuna muxuu ahaa? Sheekh Cumar al-Mukhtar 1962 ayuu ku dhashay tuulada Sawaayid oo ku taala bariga Liibiya. Aabihii waxa uu dhintay isagoo yar oo waxa uu ku soo koray agoonnimo. Yaraantiisii wuxuu barashada Qur'aanka uu ku aaday tuulo aan ka fogeyn Sawaayid. Kadib wuxuu aaday deegaanka Jaqbuur oo ay ku xoogan tahay dacwadda Sanusi, halkaas oo ku bartay culumta fiqiga, axaadiista, tafsiirka Qur'aanka iyo luqadda Carabiga oo uu gacanta ku hayay sheekha weyn ee barashada diinta lagu yaqiinay Mahdi al-Sanusi. Sheekh Mahdi al-Sanusi 1979 wuxuu Sheekh Cumar al-Mukhtar u xil saaray magaalo la yiraahdo Zawiyaat al-Qusur oo ka tirsanaa gobolka Jabalulu Akdar, isagoo oo helay jagada ah Sayyidi oo loogu yeero odayaasha iyo culimada u dhaqdhaqaaqa Sanusi oo keli ah. Cumar al-Mukhtar wuxuu sidoo kale muddo sanado ah uu ku noolaa dalka Suudaan, halkaasi oo ay ku sugnaayeen xoogagga dhaqdhaqaaqa Sanusi iyaga oo matalaya magaca al-Mahdi al-Sanusi. Halkaasi uu Mukhtar deganaa deegaanka Karuu oo ku yaala galbeedka dalka Suudaan. Kadibna uu Mahdi Sheekh Mukhtar u magacaabay inuu noqdo Sheekh Zawiya. Tani markii Sheekh Mukhtar uu safarka ka tagay dalkaasi Suudaan waxaa loogu yeeri jiray libaaxa lama deegaanka. Kadib dhimashadiisii Maxamed al-Mahdi al-Sanusi oo ahaa ninkii labaad ee dhaqdhaqaaqa Sanusi sanadii 1902 sanad ka hor dagaalkii uu Cumar al-Mukhtar la galay Talyaaniga wuxuu Ingiriiska dagaal kula galay deegaan ku yaala xadka Masar sida deegaanada Bardiya, Saluum iyo Musaacid. Dagaalkii Saluumana wuxuu kula dagaalamay 1908 magaalada oo ku dhacday gacanta Ingiriiska. Sidoo kale Cumar al-Mukhtar wuxuu ka qayb galay dagaaladii ka dhex qarxay Sanusi iyo Faransiiska ee gobolada koonfurta Suudaan. Waxaa intaa dheer oo uu Cumar al-Mukhtar ka qayb galay dagaalkii gumeystaha Faransiiska uu ku qabsanayay dalka Chad ee dhacay 1900. Sanadii 1911 Talyaaniga ayaa waxa uu iclaamiyay dagaal ka dhan ah dowladda Cusmaaniyiinta ee ka talisa dalka Liibiya, wuxuuna Talyaanigu uu ciidamadiisu uu ka howlgeliyay gudaha dalka Liibiya sanadii 1912. Talyaanigu wuxuu ku dhawaaqay Liibiya inuu yahay dalka uu Talyaanigu gumeysto. Cumar al-Mukhtar oo ay markaa da'diisu ahayd 53 jir wuxuu horkacayay kooxaha iska caabinta gumeystaha ee gudaha Liibiya ka dagaalama oo muddo 20 sano ah Talyaaniga dagaalka kula jiray. Muddadaasi oo jabhadda ay khasaare lixaad leh ku gaarsiiyeen dagaaladii Sanusi iyo Faransiiska ee gobolada koonfurta Suudaan ilaa iyo dagaalkii Chad ee 1900. Gumeystihii Talyaaniga iyo kooxaha iska caabinta ee gumeysidiidka ah
uu Cumar Mukhtaar hogaaminayay iyo ciidamada Talyaaniga waxaa Liibiya ku dhex maray dagaalo aad u weyn. Uu ka mid ahaa dagaalkii weynaa ee 2 maalmood socday ee Derna oo dhacay bishii May 1913. Dagaalkaasi oo ku dhammaaday 70 askari oo Talyaani ah oo la dilay iyo 400 oo kalena lagu dhaawacay, iyo dagaalkii Bushmeel ee Cayn Mara oo ka dhacay bishii Oktoobar 1913. sidoo kale 1914 waxaa dhacay dagaalo ay ka mid ahaayeen Shaqnab, Shaldiima, Sawitina. xilligaasi oo uu Cumar Mukhtaar hogaaminayay dagaaladaasi oo dhan isagoo isaga gooshayay goobaha ay dagaaladu ka socdeen. Xaaladda ayaa kasii dartay iyadoo faashistihii ay la wareegeen taladii Talyaaniga bishii Oktoobar 1922. intaa kadib waxay kordhiyeen howlahoodii militari ee Liibiya. Xaaladda dalka Liibiya ayaa kasii dartay kadib markii ay talada dalka Talyaaniga 1922 mar kale faashistuhu la wareegeen, iyaga oo wixii intaa ka dambeeyay kordhiyay howlgallada ciidan ee ay ka sameeyeen dalka Liibiya. Talyaanigu wuxuu damcay inuu qabsado wadada ay sahayda u soo marto kooxaha kacdoonka wada, wuxuuna qabsaday qayb ka mid ah Jaqbuub, balse taa ma hor istaagin kooxaha kacdoonka wada in ay weeraradooda sii laba jibaaraan. taa ugu dambeyntii Mussolini ku kaliftay inuu Badoglio uu u soo magacaabo taliyaha militariga Talyaaniga ee dalka Liibiya bishii January 1992. Maxamed Maxamuud Ismaaciil wuxuu ku qoray buuggiisa uu ugu magac daray Cumar al-Mukhtaar shahiidka Islaamka ee geesiga Saxaraha, wuxuuna ku sheegay Cumar al-Mukhtaar fariin uu shacabka Liibiya ugu diray xabad joojin, Talyaaniga inuu ka baxay Jaqbuub iyo in cafis guud loo fidiyo maxaabiista siyaasadeed isla markaana la sii daayo. balse Talyaaniga balamihii xabad joojinta ma fulinin, waxayna dalbadeen muddo kordhin iyaga oo marmarsiyo ka dhigtay safarka Badoglio uu Liibiya ku imaanayo, waxaana loogu daray 10 maalmood, ugu dambeyntii 20 maalmood. Cumar al-Mukhtaar markii uu ogaaday Talyaaniga inuu doonayo inuu waqti helo, wuxuu kordhiyay dagaaladii uu kula jiray gumeystaha Talyaaniga. kadibna Mussolini wuxuu Liibiya u magacaabay Generaal Graziani inuu bedelo Badoglio. ugu dambeyn 1931 Cumar Mukhtaar wuxuu ku dhacay gacanta Talyaaniga iyada oo lagu qabtay Kufra kadib markii uu Talyaanigu uu cadaadis xooggan u saaray Cumar al-Mukhtaar. ma isdhiibeyno ilaa aan guuleysano ama aan dhimanno. 11 bishii Sebtembar 1931 Talyaaniga wuxuu ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo Cumar al-Mukhtaar. 3 maalmood kadib 14 Sebtembar ayuu taliyihii reer Talyaani Graziani yimid Benghazi, wuxuuna si degdeg ah ugu dhawaaqay qabashada maxkamad gaar ah bishii Sebtembar 15 1931. 5 fiidnimo ee maalintii loo qabtay maxkamadeynta Cumar al-Mukhtaar waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. subaxnimadii maalintii xigtay dhageysiga dacwadda Cumar al-Mukhtaar, maxkamadda waxay ku xukuntay xukun dil ah oo daldalaad ah. hadalkii caanka ahaa uu Cumar al-Mukhtaar uu madaxdii gumeystaha Talyaaniga markii ay dhaheen kacdoonka jooji oo isdhiib uu ku yiri wuxuu ahaa isma dhiibeyno ilaa aan guuleysano ama aan dhimanno. ugu dambeyntiina 1943 ayuu gumeystuhu Talyaaniga uu ka baxay Talyaaniga oo uu muddada gumeysigaasi ku haystay. inta aynu kusoo gabagabaynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.